Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawada intaadan muuqaalkan aadan daawanin, hadduu channelkan uu kugu cusub yahay, subscribe dheh si uu kuu soo gaaro muuqaalada dambe aynu soo dhigi doono ee xiisaha badan. Maanta waxaynu ka hadli doonaa Neymar Jr iyo kabtanimada kooxda PSG iyo tababaraha Thomas Tuchel waxa uu ka yiri. Neymar Jr ayaa la sheegay in lagu koolkooliyo kooxda PSG isla markaana laga sareysiiyo ciyaartooyda kale, laakiin Thomas Tuchel ayaa markan si adag u hadlay. Tababaraha kooxda PSG Thomas Tuchel ayaa ku dooday in aanu Neymar ka dhigi doonin kabtanka kooxdiisa, isaga oo weliba shaaciyay sababta dhabta ah. Thomas Tuchel ayaa ku dooday in uu haysto laba kabtan oo fantastic ah, kuwaas oo kala ah Thiago Silva iyo Marquinhos, oo ay Neymar kasoo wada jeedaan dalka Brazil. Markii Tuchel wax laga weydiiyay in kabtanimada kooxdiisa Paris Saint-Germain uu gacanta u gelin doono Neymar Jr, wuxuu sheegay in aanu jirin sabab ay kabtanimada u beddelaan. Tababare Thomas Tuchel oo arrintan ka hadlaya ayaa yiri, "Waxaanu haysanaa laba kabtan oo ah Thiago Silva iyo Marquinhos, isla markaana ma dooneyno in aanu beddelno." Laakiin Thomas Tuchel ayaa si lama filaan ah u sheegay in Neymar Jr aanu taariikh u lahayn xirashada calaamadda kabtanimada, wuxuuna yiri, "Aniga ahaan taariikhda isagu uma laha in uu calaamad ka noqdo kabtanimo." Laakiin Thomas Tuchel ayaa si kale u ammaanay Neymar Jr, wuxuuna yiri, "Isagu waa hogaamiye farsamo iyo gool dhaliye. Anigu ma garanayo sababta uu qof kastaaba arrintan uga hadlayo. Waxaanu haysanaa Thiago Silva iyo Marquinhos, iyagu waa fantastic." Neymar Jr ayaa waqti soo noqday kabtanka xulka qarankiisa ee Brazil, laakiin waqti kooban kadib waxa uu ku soo laabtay ciyaartoy ka mid ah xulkiisa oo kaliya, iyada oo aan loo arag in uu yahay mid ku habboon calaamadda kabtanimada. Laakiin Thomas Tuchel ayaa mar kale muujiyay in Neymar Jr aanu lahayn astaamaha ama taariikhda uu ku xiran karo calaamadda kabtanimada ee kooxdiisa PSG.